السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغياري ملك استوديون كأكجوكتان وايد السلامي مقعيقة ونصر حسن علي. هالكاد نقدا ونيسان ونصر الصوم إن شاء الله ما توحك علينا برنامج كيني نولشة إن كاسو aan week kasta aan kaga soo qaato waxyaabo badan oo bulshadeena horumarna ku gaarsiin karo dhibaato badanna ay ku keentay farxadda horumarka nolosha dhabta insha Allah nasr waxay noqon doontaa mid u hadasha xaqaaga mid ka hadasha waxyaabaha runta taasoo aan ayadana ka hadlaynin ayadana iska hadlaynin dhibaatada bulshadeena haysata waxay kamid ah qof ayaa wax ka hadlaayo ama barnaamij ayuu soo bandhigaya ama waxyaabo badan oo u wanaagsan bulshada ayuu soo bandhigaya qof walaalkiis kale ayaa ka daba qaadanaya oo u fikiraayo qofkaas ama asaga iska hadlaaya ama iyada iska hadlaysa qofka asaga iska ma hadlaayo adina ka ma hadlaayo wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha jiro oo laga yaabo in qof kale kugu sameyn lahaa ay kugu hadlaysaa ama uu kugu hadlaaya ma aan wax iyada iska hadlayso haddii wax badan laga hadli lahaa waxyaabo badan ayaan horumar ku gaari lahayn nolol fiican aan ku samaysan lahayn markii la hadlo bulsho badan oo wanaag ka hadasho waxaa yaraanayso bulshada xumaanteeda badnaa laakiin haddii markasta xumaanta un la faafiyo wanaagana wax laga sii sheego waxyaabaha dhibaatada bulshadan u keento waxyaabahaas ka mid haddii qofku wanaag uu ka hadlo waa la sheergareeyaa waa la dhiirigeliyaa dadka kale ee walaalkiisa ama walaashiisa ay ugu daydaan bulsho kastana waxay horumar ku gaartaan dhalinyarada ama qof kasta oo u hadla ama qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado markastana waxaa fiican in bulshadaada aa u hadashid si aynu u noqono bulsho horumartay oo aan dadka ka dambeynin ka dambeynta maxaa ka wadaa haddii marka aan Facebook ama social media waxyaabaha xunxun aan ku share gareeno oo dhibaato badan ay noo keento ee dadka ay noo arkaan inaan dad jaahiliin aan nahay sida had example oo kale Facebook qof walaalka oo wax xun sameynaa soo bandhiga ha share gareenin qofka soo dhigay ilaahay ka baqdhe haddii laakiin aa sheegaraysid ceebta ayaa badanayso dulmiga ayaa badanayo dad badan oo waxaa jiro oo boring waxay haayeen aan jirin oo only ka shaqeysta waxyaabaha xunxun farxad maalinkaas qosol ayay u tahay markaa sheergaraysid ayagana markay sii sheergaraan ceebteena dadka xataa caalamka waxay noo arkayaan dadka ugu dambeeyo marka waa aragtiin dadka hadda ajnabiga sida wanaagsan ayay u isticmaalaan social media uma isticmaalaan sida xun ma soo sheergareeyaan wax xun ma soo dhigaan iskuma caayaan laba qof waxaa laga yaabaa oo wanaag ka dhexeeyay inay Facebook isku soo caayaan sawiro xun iska soo geliyaan taasna anaga ceeb ayay noo keenaysaa dhibaato badanna ayay noo keenaysaa taas oo aynu noo fiicnaan insha Allah barnaamijkaasna mar ayaan kusoo qaadan doonaa haddii ilaahay idmo insha Allah caawa waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa daniga ama shakiga ama qofka walaalka oo aad uga fikirtid xagga qaldan ama waxa xun malaha xun waxyaabo badan diinteena xataa waxay sheegaysaa malaha xun inaysan wax fiican ahayn qof walaalka u malaysid waxyaabo xun adiga oo u malayn karo waxyaabo wanaagsan qofkaas meesha wax nooga fikiraysid waxa kaaga wanaagsan adoo u fikiro xagga wanaagsan ilaahayna uu ajir ka siiyo laakiin qof walaalka hadaa meel xun uga fikirtid ama shaki ka galo birta adiga ay ku qabsanaysaa inta badan dadka maxay ka fikiraan waxa maanta jiro laakiin uma fikiraan ama kama fikiraan waxa biri ku dhacayo ama maanta qof hadaa ku mashquulshid niyadooda ma soo gasho birta waxaan qofka uga mashquulsanta aday kugu dhacayaan taasna wallahi wax badan la arkay waaye dad badan oo dadku mashquulsanaa maanta shalaata taagan way jiraan haddii adi aa badbaaday oo xagga wanaagsan aa u badbaaday laga yaabo biri awlaada dhalaysaa gabaraa dhalay wiilaa dhalaysaa iyeeyaa noqonay awoowaa noqonay aabbaa noqonay hooyaa noqonay meesha ku dambeynaysa ma garanaysid marka markasta waxaa fiican inaad wanaagga ka shaqaysid wax wanaagsan aad ku fikirtid waadan wax xun aadan ku fikirin haddii aa wax xun ku fikirtidna shaydaanka iska naar qalbigaagana markasta waxaa ka dhigtaa in uu nadiif kuu noqdo oo qof kastana aa wanaag u rajaysid horumar wanaagsan u rajaysid farxad aa u rajaysid qalbigaagana ha noqdo mid wanaagga markasta ku jiro si ilaahay uu kugu gargaaro haddii afka aa ka macaan tahay oo hadal macaan aad dadka ka dhahdid oo qalbigaagana uu jirin qofka kale macaanka uu dareemaa laakiin ilaahay ayaa ku daalacanayo ilaahay markasta kula jiro wax kasta aa samaynaysid meel mugda daagashid oo wax xun aa samaynaysid asdhaysid dad ima arkaya oo dadka hortoodana wanaag aa ka samaysid waxa qofka ku daalacanaya keli waa ilaahay adduunkan ku keenay xayaatadan macaan ku siiyey quruxdaa aragti ku siiyey lixda lixaad ku dhamaystiray markasta waxaa ku fikirtaa wax xun markaa samaynaysid ilaahay ayaa arkaya qalbigaaga xataa hadduu soo galo wax qof ama kaga shakisaaraad naagtan ii soo socoto maalin dhaweed ayay i xumeysay maalin dhaweed anagoo waddada marayna ma ii salaamin qalbigaaga hadduu soo galo shaydaanka iska naar inta badan dadka u badan yihiin qaarkood daniga waxyaaba badan waxaa keena waxaa ka mid markaa u rajaysid wax xun qofaa ku imaaday maanta wuxuu ku dhahay waxaan ayaa rabaa inaan sameeyo sidee u aragtaa war waxaan wax faa'iido lagama keenayo
kii kaa horeeyay faa'iido kuma keenine iska dhaaf waa dan iyo shaki bas qofkan waxaa u rajeynaysaa waxaan uu sameyn lahaa ayaa waxaa uga dhigtay wax xun qalbigaaga ayaa gelisay marka wax xun qalbigaaga markaa gelisay qof walaalkaa kale ayaa ku dhahay wax fiican maahan qofkaas laga yaabo inuu horumar ku gaari lahaa oo adigu kugu caawin lahaa oo qof kale ku caawin lahaa oo nafsadiisa horumar ku gaarsiin lahaa marka dad waxaa jiro oo qalbigooda jilicsan yahay iyo dad waxaa jiro qalbigooda u adag yahay dadka qalbiga adag markii wax xun la dhaho waxay u arkayaan inuu wax fiican sameynayo weligiis ma give up gareenayo oo waxa uu sameynayo ayaa kala macaan waxa qofka kale dhahayo laakiin qofka kale oo qalbigiisa jilicsan marka hadal dhahdid laga yaabo inuu meesha uga tago taasna maxaa u sababay adiga marka adiga ma jeceshaa adiga in qof uu ku dhaho wax dan uu ku dhaho hey waxaan waxa kama keenaysa iska dhaaf waxun inuu ku rajeeyo ma jeceshahay waa may marka sidaas inaad u fikirtaa wanaagsan walaalka ama walaasha wax wanaagsan aad u rajeysid waxa xunna aad ugu fikirin sidoo kale daniga waxaa keeno cunugaagii aa uga shakisid wax xun adigoo arkaayo in aad saaxiib la noqotid soo dhaweysatid ka dhigitid midka keliya wax u sheegto taas oo aan shaki badan ku gelinaynin dani badanna naftaada gelaynin adigii oo cunugaaga dhalay haddana saaxiib ka dhigo haddana wax kasta oo qalbigiisa ku jiro suu kugu sheego maadaama waalidiin badan ilmahooda dani badan ay ka qabaan hadduu ibar qolka la galo dhahayo muxuu ku sameynayaa muxuu ku yeelayaa marka hore waxaa lagaa doonayaa in cunugaaga aa waqti gelisid suu qalbigiisa iyo qalbigaaga ay iskula socdaan iskula jaan qaadaan markaa cunugaaga wax wanaagsan aa u rajeysid waxa u rajeysa ayuu noqonayaa laakiin cunugaaga haddaa u rajeysid inuu wax xun sameynayo inuu meel xun aadayo inuu iskuulka saaxiibo cun uu ku leeyahay qalbigaaga ay soo galaan marka hore uga shekisid taas way noqon kartaa wayna dhici kartaa waxaa ugu fikirtay markasta waxaa fiican qof kasto ama dhal ama ha kula dhasho ama dariskaaga ha hado inaa u rajeysid qalbigaaga ugu rajeysid wax wanaagsan aan niyada gelisid wax kastana waxaa fiican sida wax kastana waxa ay noqdaan sida adi aa ka dhigitid ama sida adi wax kasta aa u fasiratid waxyaabaha kaloo dhibaatada keena waxaa kamid ah gabar ayaa saaxiiba tihiin darisaa tihiin jaceyl badanaa istuseysiin xaflada isku raacaysiin aroosa isku raacaysiin waa isdadabagelaysiin sida waxaa isku noqonaysiin laba qofoo saa isku dhex gashay taasna wax fiican maahan dadka waxaa fiican ayagoo isdhexgalaayo wanaag dhexmaraayo cuntada iska qaadanayo wax kasta isku sameynayo haddana waxaa fiican dadka inay xad leeyihiin qofkan dabeecadiisa wanaagsan dabeecadiisa xun inaad baran kartaa fiican si kasta jeceelow idinkaga dhexeeyo haddana waxaa lagaa doonayaa in qofkan aad xad kala leedihiin haddii xad aadan kala lahayn tuhun badan ayaa imaanayo shaki badan ayaa imaanayo waxaa ka shakinaysaa naagtan amay beri ku xamaneen waxaa laga yaabaa gabar saaxiibta iyo gabar kale oo isla taagan adoo xagga kasoo socda inaad dhahdid maalin dhawood waxaan halkan aan iskula shekeysanayn amay tan u shakeysaa taas waxay noqon kartaa dani adigana qalbigaaga dadaa gelisay dani badan ayaa gelisay shaki badan ayaa gelisay gabadhaas kalena sidoo kale marka dadka waxaa fiican si daniga uu u badanin shakigana uu u badanin dhibaatadana ay u badanin qof walba inuu xal leeyahay ayaa fiican dariska ay xaqu kugu leeyahay laakiin xaqa ma ahan in laisgalgalo habeenkii 3 saac ilaa 4 saac banaanka laisla fadhiyo laisla sheekaysto maanta dhan laisdhex jiro maanta dhan dan la kala qaadanin hadduu qof maanta qof kale meel aado oo kulligiis aado qofka kale uu xanaaqa gafurku taaga maxay igaga tagtay aniga waa israaci jirnay waxaa fiican privatekaaga inuu adig qaas ku ahaado si aa u noqotid qof noloshiisa kali kontaroolo oon dadka kale noloshooda aan kontaroolin taasoo adina fursad aa ugu helaysid waxyaaba badan inaad samaysatid nimanka qaar ayaa jiro laga yaabo xaaskiisa inuu meelo kale uga shakiyo ama wax kale ay dhex maraan uu dhaho naagtan amaysaa sameysaa naagtan haddii aan isla shaqaysano ama horumaraa isla gaarno amayto berita ay xirtaa ama dhibaato ii geysaa ama ay dhacdaa kuwa waxaa jira saas u fikiraayo qalbigoodana shaki galaayo taasna waxaa keenayso dhibaatada labada qof iskuma dhawaa dadka waxaa fiican inay isku soo dhawaadaan ama ha isqabaan ama yes isqabin dadka markaa isku soo dhawaataan oo asaa iskugu soo dhawaataan qofka waxaa baranaysaa waxa ka suurtagala iyo waxaana ka suurtagalan adigoona markasta ilaahay tala saaranayo waxaa arkaysaa wiil iyo gabar sheekeysanayo xiriir ayaa ka dhexeeyo
xiriirkooda aad ayuu u dheeryahay, wax badan ayay sheekeysanayeen. gabadhi laga yaabo inay ka shekinayso ninkan beri amuu kaaga baxaa amuu kuligooyaa waqtiga kaa dhumiyaa. ninkan kalena asaga oo kasii fikiraayo naagtan amay waqtiga kaaga ciyaartaa, amay berita ay kaaga baxdaa, amay nin kale kaa raacdaa. markasta waxaa fiican dadka inay wax wanaagsan ay iskugu fikiraan, wax wanaagsan qalbigooda dhex maro, wax wanaagsan qofka kale uu rajeeyo, idinka oo ilaahay tala saaranayo haddana qalbiga ay isku furaysiin. waxaa arkaysaa waalidiin qaar ama dad qaar dhahayo meesha ay 16 sano ku gaarto, gabaraa dhashay laga yaabo ama wiilaa dhashay inay dhahdeen meeshuu 16 sano ku gaaro bal waa arkaynaa meeshuu kasoo baxo. laga yaabo cunugaas inuu dhib badan yahay, laakiin ha u fikirin malaha xun, ha u fikirin meelaha qaldan. adiga waxaa lagaa doonayaa inaad qof kasta u rajaysid good luck. adi markasta qalbigaaga haddii xitaa uu qofku xumeeyo ha uga fikirin wax qaldan, niyadaadana ha gelinin qofkaas saanu kugu sameeyey saanu ku sameeyo. dad waxaa arkaysaa barnaamija laga hadlayaa ama meel xaflada laiskugu imaaday ama wadaadaa wax ka hadlaayo, qofaa wuxuu u maleeyaa qofkaas inuu asaga ka hadlaayo. shakiga ma fiicno iyo daniga. laga yaabo qofaa telefoon ka hadlaayo, ku hadlaayo qolkale ku jiraa, waxaa uma dhigtaa taagi xaleeda qofkaan muxuu sheegaya anmuu iga sheekeynaya. waxaa fiican in adi confidence aa isku qabtid, adi aa isku kalsoonaatid, adi aa noqotid qof isku kalsoon oo xad leh ad adag, si aa u noqotid qof is-aaminsan. haddii aad is-aaminsaneen waxyaabo badan ayaa qalbigaaga soo gelaayo, waxyaabo badan ayaa niyadaada soo gelaayo, adiga dhan walwalaa ku noolaane. laakiin haddii subaxii aad soo kacdid, cadaysatid, salaadaada tukatid, ilaahay isku xirtid, adduunka waxaa kasoo qabsanaysa kasoo qabsatid, gurigaaga imaatid, waxaa qabsan karta qabsatid, banaanka da-adas danaha kasoo dhamaysid, ciyaalkaaga waqti gelisid, dariskaaga haay isdhahdin, noloshaada adi keli ay ku ahaato ayaa markasta qurux badan. laakiin haddaad dadka maanta dhan saaxiib badan leedahay, dariska isku imaanaysiin, maanta dhan la isdaba socdo, maanta dhan telefoon la iskula sheekeysanaayo, hadda qofkii berito busy aa noqonay, wax kastaa kugu dhici karo. qofkii wuu kaa shakina. inkastoon haddii ana qofka uu xataa isoo wicin oo weligiis uu ila soo hadlin aana kala jeclayn, oo markastana wanaaga aan dhaho qofkaas wuxuusu ku mashquulay, noloshiisa ayuu ku mashquulay. gabdhahana inta badan waxaa u badan yihiin dadka shakiga badan, taasna ha iska daayaan. isdhexgalka badan ama dadka maanta dhan isdhexgelaysiina aa yareysaan, si aa u noqotid gabar horumarkeeda ka talisa, walaasheeda kale wanaag u rajeysa, xumaan qalbigeeda ugu qaadin. gabdho badan waxaa arkaysaa wanaaga wallaahi ka dhexeeya haddaa aragtid aa yaabaysid, jaceylka ka dhexeeya aa yaabaysid, farxadda ka dhexeysa aa yaawaysid. maalmaha ka mid waxaa maqlaysaa way isdagaaleen, asalaamu calaykum isma dhahan. maxaa keenayso isgalgalka badan iyo qofkiiyo secretkaaga dhan aa u sheegtid bababababa aa ku mutagtid. qofka bini aadanka waxaa fiican haddaaba ka shakinaysa inaadan waxba u sheeganin. tan kale secretkaaga ama dhibaatadaada ama wax kastoo kugu dhaco inaadan qofna u sheeganin. qofaa waxaa arkaysaa dhahayo hiblaayo way safartay, maxay ku safartay? hiblaayo gabadheeda gabar kale la socotay oo xun, oo surwaal wadatay oo qamaar wadatay. maxaa qofka bini aadanka ha ku mashquulin. qofka bini aadanka waxaa laga yaabaa qofkaas surwaalka wato inuu adig kaa fiican yahay xijaabka wato. marka dadkeenu aaday iskugu mashquulaan. mashquulka badan ha liska dhaafo, daniga badan ha liska dhaafo, qalbigaagana ha u rajeynin qof wax xun. insha allah xagga wanaagsan aan wax kasta ka fiirano. insha allah barnaamijkiisa intaan ku kulmi doono waxyaaba badan oo bulshada horumar ku gaarayaan iyo wax kasta oo farxad bulshada gelinaya ayaan kusoo qaadan doonaa hadduu ilaa yiraahdo. insha allah subscribe, snapchatka nagala socda. snapchatka maalin kasta waxyaaba cusub ayaa soo geliyaa oo aa uga hadlaya cuntada, markasta waa soo geliyaa, nolosha uga hadlaa, waxyaaba badan ayaa uga hadlaa markasta oo aan gurigeyga aa sameynayo. insha allah exercise waxyaaba badan oo aan isdhigi karo bulshada wax badan ayay taraysaa ayaan kusoo bandhigaa. youtube-kana weeki maraa soo geliyaa, inkastoo ayaamahan aan mashquula aan wax soo gelin, laakiin insha allah waa soo gelin doonaa hadduu ilaah yiraahdo wax badan. saxaab badan waxay dhaheen Nasro youtube waa ka mashquulshay. anoo hadda magaalo kala joogo safar aaday ayaan haddana video idiin soo duubayaa. waxaan jeclahay waxyaabaha bulshadeeda aan u hayo inaan halkaan aan kasii wado hadduu ilaah yiraahdo, adina aan nagala sii wadid. Nasrisom adigaa iskale, anigaa iskale, qof kastoo Soomaali ayaa iskale. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij wax kasta oo Soomaali ama horumar ay ku gaaraysa in lagu soo bandhigo.
youtube keena subscribe haddaad subscribe garaysid wax kastoo aan soo gelino halkaas ayaa kala soconaysaa, email ayaa kusoo dhacayo qaybta gaduudan subscribe ku dhufo like haddaa ka heshay share si saaxiibadaada kale ay uga faa'iidaystaan insha allah ilaaha naga dhigo kuwii markasta wanaaga soo bandhiga, ilaaha naga dhigo kuwii wanaaga qalbigooda markasta ku jiro insha allah waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.